daawadaha qiimaha badan oo ku soo dhawow muuqaalka xiga ee Toosane Technical. Muuqaaladii ugu dambeeyay aan channelka soo geliyay waxaan kaga hadlay sida aad Facebook-gaaga u ilaarsan lahayd. Haddii ahaan lahayd inaad password-kaaga adkayso iyo haddii ahaan lahayd inaad two step verification ku xirto iyo wixii la midka ah. Muuqaalkan wuxuu u daba joogaa muuqaaladii aan channelka soo geliyay kuna saabsanaa ilaalinta Facebook-gaaga. Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa haddii ay farahaaga ka baxaan account-nada Facebook aad ku leedahay sida inaad password-kaaga in la barto ama in la helo waxyaabo kale oo adeeg lagugu soo dhaco. Facebook dad kale oo asxaabtaada ah awood ma u leedahay inay kala soo xiriirto oo sidaa account-ka lagu badbaadiyo? Jawaabtu waa haa. Waa haddii aad adiga doorato oo aad muuqaalkan dhamaysato raacdana steebyada aan ku sheegi doono. Nidaamkan waxaa loo yaqaanaa trust contacts. waxaad dooranaysaa 3 ilaa 5 qof oo asxaabtaada kugu dhow ah adna aad u kalsoon tahay kuwa oo lagala soo xiriiri doono haddii dhibaato ay account-kaaga Facebook ku dhaco. haddii account-kaaga Facebook dhibaato ku dhaco waxaa si automatic ah lala soo xiriiri doonaa asxaabtii aad dooratay oo trust contacts ah ama lambaradii aad adigu aamintay ama account-nadii aad aamintay oo asxaabtaada ah ayaa lagala soo xiriiri doonaa si lagugu badbaadiyo account-kaaga ama dib lagugu soo celiyo Facebook-gaaga. yaan war badan kugu daalin aan ku tuso sidaad u xulan lahayd asxaabtaada aad ku kalsoon tahay kuwa oo aad jeclaan lahayd in lagala soo xiriiro haddii ay dhibaato kugu dhacdo. marka ugu horeyso barnaamijka Facebook ayaad soo furanaysaa. marka aad Facebook-gaaga soo furto kadib waxaad ku xulinaysaa 3 dilig ee sare ee gacantaada midig. kadibna waxaad ku xulinaysaa qaybta hoose ee ku qoran tahay settings and privacy. kadib waxaad ka sii xulinaysaa halka ay ku qoran tahay settings. markaad xulato kadib waxaad ka xulinaysaa halka ay ku qoran tahay security and login. waxaad ka sii xulinaysaa halka ay ku qoran tahay choose 3 to 5 friends to contact if you are locked out. halkan ay taabanaysaa kadib wuxuu halkan kugu soo bandhigi doonaa wax loo yaqaano contact trust ama trust contact. wuxuuna ku qeexi doonaa qofkan waxa uu yahay in uu yahay qof yani haddii wax ciwaankaaga caqabad ku imaato oo lagala soo xiriiri karo inaad doorato. halkan ayaan taawanaynaa ay ku qoran tahay choose trust. kadib waxaan gelinaynaa Facebook-giina password-kiisa. wuxuu hubinayaa inaad adiga tahay iyo in kale. kadib waxaa leedahay continue. markaad continue dhahdo wuxuu ku keeni doonaa marka trust contacts ama dadka markaas Facebook kugu jiro. dadkan oo kor soo saar dadka ugu badan aad la sheekaysta ama aad la hadasho. sidoo kale hadda u baahan tahay dadka kale meeshan ayaad ka raadi kartaa oo qofkii markaas aad u baahan tahay. waxaan samaynaynaa hadda waxaan dooranaynaa qofkan ugu horeyso ee ku qoran tahay Samafal Abida. sidoo kale dadkalna waa sii dooran kartaa 3 ilaa 5 qof. balse aniga tusaale ahaan aan kugu tusaalkan qof kadibna aan dhaho dhan. wuxuu i weydiinayaa qof kale inaan markaa kusoo daro sababtay tahay wuxuu leeyahay 3 ilaa 5 qof ayaa laga baahan yahay qof kale kusoo daro. aan ku daro ciwaankan kale qaybta sare ku qoran tahay iyo ciwaankan kale 3. kadibna aan dhaho dhan. hadda wuu u qaatay sababtay tahay 3 qof iyo 5 qof uu doortay ayaa markaas siinay. hadda Facebook-gaaga waxaa dooran 3 qof oo saaxiibadaada ah oo hadhow lagala soo xiriiri doono sida meesha ay kugu muuqataba. haddii aad u baahneen dadkan waxaa samayn kartaa in aad iska daleedo ama aad ka laabato. haddii aad rabtidna waxaa dhihi kartaa dhan oo sida ayaa ku aqbashay. marka waa intaan kuna xiro 3 qof ama 5 qof oo aad ugu kalsoon tahay haddii account-kaaga Facebook caqabad ku dhaca ama la jabsado si markaas dadkaas lagala soo xiriiro oo lagu caawiyo. kuma hasin daawashada. fadlan haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar la wadaag asxaabtaada muuqaalka u sii share garay. haddii aad muuqaalka heshay like saar
intaan ku kulmayno muuqaalka xigo nabadgelyo guuleysta